maamulaha halka daqiiqo waan hubaa qof kasta waxa uu ka anfacayaa fanka maamulka iyo maareynta hadday tahay xagga waqtiga shaqada waxbarashada cilaaqaadka kala dhexeeya dadka iyo noloshaadaba guud ahaan halkan waxaan ku soo gudbin doonaa soo koobid iyo sharaxaad ku saabsan buugga la yiraahdo The 1 Minute Manager. buuggu waxa uu ka hadlayaa sida ciwaankiisa ka muuqata sidii aad waqti yar oo kooban gudihii aad u samayn lahayd isbedel weyn xagga shaqadaada kaliya shaqada maaha xeerarka ama qodobada uu ka hadlayo xataa waxaad ku dabaqi kartaa naftaada iyo noloshaada. buugga waxaa qoray laba nin oo la kala yiraahdo Ken Blanchard iyo Spencer Johnson. muhiimadu waa buugga waxa magacyada isku mashquulin mayno inta badanna waxaan adeegsan doonaa ereyga qoraaga waxba isku dhibi mayno inaan kulba magacyada soo celcelino. haddaba ahlan wa sahlan ku soo dhaw mowduuca koobkaaga shaaha soo dhaweyso aan bilowno. sidaan hore u soo yar sheegnay buuggu waxa uu si guud ugu tacalluqaa fanka maamulka. waxa uu qoran yahay qaab sheeko ah oo ku xiiso gelinaysa wiil dhalinyar ah oo soo booqanaya nin lagu yaqaano maamulka oo lagu magacaabo The 1 Minute Manager. maamulaha halka daqiiqo wada sheekaysi dheer ayaa dhexmaraya. wiilku waxa uu rabaa in uu ogaado maamulahani sida uu wax u maareeyo. haddaba waxaynu tilmaami doonaa qodobadii ugu muhiimsan ee inaga khuseeya. qodobka koowaad qoraagu waxa uu xusayaa meesha wax kasta oo la bilaabayaa ama la qabanaya ay ka bilaabanto taasi oo ah goal setting dejinta hadafka. haddii aanu jirin hadaf kuu degsani waxba kuma soconayaan. sida aynu naqaano marka aad shaqo cusub bilowdo waa lagu soo dhaweynayaa dhismaha ayaa lagu kala bari shaqaalaha iyo maamulka ayaad baran kadibna waxaa emailka lagugu soo diray howlo fara badan ama ka bulsho ahaan si oraliya ama afka ayaa lagaga sheegay shaqooyinka aad qabanayso balse dhab ahaan qofna weligaa kuma sheegin waxaad ka mas-uul ka tahay iyo hadafka ay tahay inaad gaarsiiso meesha aad ka shaqaynayso. xataa noloshaada way yar tahay inta fadhiisato aad isweydiiso waxbaad barataa waad shaqaysaa haddaba halkeed u socotaa. dadka badankooguna sida waxa uu leeyahay qoraagu waxaad dejisaa hadaf iyo gool ka kooban ugu badnaan 250 erey hal page ku soo koob. waa inuu awoodi karo qofka akhrinaya inuu ku soo koobo ama uu ku akhriyo hal daqiiqo. badanaana waxaad maqli doontaa hal daqiiqo maadaama buugga magaciisa yahay The 1 Minute Manager. kadibna waxa uu ku leeyahay la wadaag qofka shaqaalahaaga ah ama aad maamulka u tahay isaguna waa inuu saas oo kale hal minute uu ku akhriyo si uu u ogaado hadafka iyo ujeedada uu u joogo meeshan ama shaqada uu qabanayo waxay tahay. waxa uu ku leeyahay qoraagu isticmaal ruulka ama xeerka la yiraahdo 82 oo macnihiisu yahay 80% ka mid ah natiijooyinkaagu waxay ka imaadaan 20% ka mid ah goalskaaga ama hadafyada aad dejisatay. xeerkan waa mid aad u muhiim ah meelo badan oo nolosha ka mid ah uu ka anfacaya. waxaan ka akhrinayay buug la yiraahdo Eat That Frog. isla xeerkan waxa uu ka hadlayaa si qoto dheer. waxa uu tusaale u soo qaadanayaa haddii aad tahay qof dukaan haysta waxa uu ku leeyahay 20% ka mid ah customerkaaga ama dadka macaamiil ku ah 20% kaliya ka mid ah ayaa waxay ku soo galiyaan 80% ka mid ah dakhligaaga. taamicnaheedu waxay tahay 80% ka soo haray ee customerkaaga waxay ku soo galiyaan kaliya 20% ka mid ah dakhligaaga. sadarteed waxa uu ku leeyahay qoraaga buuggu waxa isku daydaa mar walba 20% gooliskaaga ka mid ah ee ku siinaya natiijooyinka u sareeya inaad hesho. isku day inaad kuwa awoodda aad saarto. tusaale kale oo nool haddaynu soo qaadano oo ragga waxbarashada oo kale ku tacalluqa waxaa laga yaabaa qofka arday marka uu yahay jaamacad uu dhiganayo goolka uu leeyahay ama hadafka uu leeyahay kuliyadda uu dhiganayo waxaa laga yaabaa semester kasta uu dhiganayo in koorsooyin badan uu qaato balse koorsooyinkaas 20% kaliya ayaa khuseeyo hadafkiisa iyo goolkii kuliyadda uu soo galay. 80% ka mid ah koorsooyinka kalena waxa laga yaabaa in yihiin maadooyin iska kale oo tusaale qofka haddii uu dhiganayo IT waxa laga yaabaa 2 kooras baa tacalluqa aqoontiisii kuliyadda uu galay. maadooyinka kalena waa maadooyin iska caam ah oo aqoonkooda. marka wuxuu ku leeyahay markasta oo aad gool dejinayso waxaad isku daydaa inaad raacdo ama dabaqdo heerka 80-20% ee ku siinaya natiijada ugu weyn ee hadafkaaga ka midka ah waa inaad awoodda saarto. qodobka labaad qoraagu waxa uu leeyahay wuxuu waan uga dhigay 1 minute bracings. qoraagu waxa uu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay inaad qofka shaqaalahaaga ah aad ku abaal mariso ama ugu mahad celiso waxyaabaha uu qabtay. nolosheeda caadiga ahna way ku dabaqmaysaa. qodobkan aad buu ugu muhiim yahay. si guud maamulayaashu waa dad aad u mashquul badan. mashquulka saa'idka ahina waxa uu ilowsiiyaa inay qofka shaqo wanaagsan qabtay ay abaal mariyaan. taa beddelkeeda qofka maamulka ahi waxa uu awoodda saaraa inuu khaladaadka shaqaalaha ilaaliyo. maamulaha halka daqiiqo
waxa uu leeyahay halkii aad shaqaalahaaga qaban lahayd ama aad u keedin lahayd ama aad la kulmi lahayd isagoo wax qaldan samaynaya, waa inaad qabataa marka uu wax wanaagsan samaynayo, marka uu xaalad uu ku jiro uu qabanayo shaqo uu ku faraxsan yahay, shaqo uu sidii loogu talagalay u qabanayo. waxa uu leeyahay catch people doing something right. markasta oo aad qofka la kulanto isagoo wax wanaagsan falaya kadibna aad u sheegto inuu wax wanaagsan sameeyey, waxa uu naf ahaan dareemayaa in loo og yahay hawsha uu qabanayo, waxaana aad ka dhigaysaa qof wanaaga ka sii badiya oo siyaado kale la yimaada. waxaan odhan karnaa waa sirta ugu weyn ee wanaajisa xiriirka dadka kala dhexeeya. tusaale ahaan bulshadeenna waxay u badan yihiin qoys ilaa qaran in qofka qaladkiisa uun la eego, la raadiyo. tani waxay ka dhigtaa qofka in uu inta la arkayo uun qaladaadka iska ilaaliyo, balse marka aan la arkaynin waxa uu doono samaynaya, waxa uu doono khiyaamaya. xataa haddii aad u fiirsato waalidiinteena waxaa laga yaabaa ilmuhu marka uu qalad galo uu arkayo, markaasi uu ciqaabayo halkii uu marka uu wanaag sameeyo uu uu abaalmarin lahaa. ilmihiina baqasho waalidka ka baqanayo unba waxyaabihii xumaas kaga ilaalinaya, laakiin markaan waalidku arkayn waxa uu doono falaya. waxa uu leeyahay qoraagu waxaad qofka u sheegtaa inaad rabto inaad ogaato sida uu wax u qabo, kadibna u mahadceli ama abaalmaray. ereyo wanaagsan ku dheh, halkaa ka wad, wax fiican baad samaysay. sidoo kale waxaad u sheegtaa inaad ku faraxsan tahay ama aad dareen wanaagsan u qabtid. intaa kadibna wax yar aamus. waxa uu leeyahay qoraagu laxdadaa yar ee aamusnaanta ay aad bay u qiimo weyn tahay, qofkana waxay gelinaysaa dareenka aad adigu dareemayso. intaa kadibna waxa uu ku leeyahay qoraagu dhiirigeli, gacan qaad ama garabka ka taabo. dhammaan ficiladaasi dareen gaara ayuu ku reebayaan. waxa uu leeyahay qoraagu dhammaan tallaabooyinka aynu soo sheegnay oo dhani waa inay 1 minute ama 1 daqiiqo gudahood ay ku dhacaan. waxa uu ku leeyahay 1 daqiiqo qaybtiisa hore ama 30 sekin ee hore waxaad u sheegaysaa qofka waxa wanaagsan uu qabtay iyo inuu halkaa ka sii wado. waxa uu ku leeyahay wax yar baad aamusaysaa, qaybta dambena waa inta aad gacan qaadayso ee aad garabka ka taabanayso. qodobka saddexaad qoraagu waxa uu kaga hadlayaa 1 minute reprimand. warwarin macnaha ereygan gudaha aynu ku sharixi doonaa. marka aynu leenahay qofka waxaad la kulantaa marka uu wax wanaagsan samaynayo, hadda waxaad isweydiinaysaa maxaa la samayn doonaa qofkii markii qalad lagu arko ama lagu qabto ama la arko isagoo qalad samaynaya, maxaa la samayn doonaa? sidaan wada ogsoonahay qaladku waa laga maarmaan, yacni waxaynu uga jeednaa bini aadamku u khaldama. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullu ibni aadam khata wa khayrul khata'ina tawwabin. dadku oo dhan ama ibni aadamku oo dhan wuu khaldamaa, kuwa khaldamana waxa ugu khayr badan ugu wanaagsan kuwa khaladka ka soo noqda. taas micnaheedu maaha inaad qaladka u badheedho, ee micnaheedu waa inaad qofka adiga qaladka kaa gala aad u aragto inuu bani aadam yahay, aslan inuu bani aadam yahay, khaladkuna uu ka dhacayo, waana taa u arag. daba waxa uu ku leeyahay qoraagu qofku marka uu qalad sameeyo u deji oo si fiican ula hadal, ha ku qaylinin. qoraagu waxa uu awoodda saarayaa sida badan dhinaca maamulka, laakiin bal mar walba waxaynu isku dayaynaa inaynu qodob kasta xataa nolosheena caadiga aynu ku dabaqno. saas awgeed baa mar walba tusaalayaashu halka ay la beedhayaan, laakiin buugga markaad akhrinayso waxaad arki doontaa isagoo badanaa tusaalayaasha iyo sharaxaadaba u soo qaadanaya fanka maamulka u badinaya. haddaba maxaad samayn markaad aragto qofkii oo qalad samaynaya ama si qaldan wax u qabanaya? waxa uu leeyahay qoraagu u sheeg qofka inaad rabto inaad ogaato waxa uu qabanayo, kadibna xanaano. xanaanta sidaa kuu sheegaya maaha xanaanta sidaynu u naqaano. waxa uu leeyahay qoraagu u sheeg qofka waxa uu samaynayaa sida uu u qaldan yahay, micnihiisu maaha inaad si bilaa xuduuda ugu qayliso, taas waxba ka bedeli mayso ficilkiisaas. waxa uu leeyahay waxaad u sheegtaa sida aad dareentay marka uu qaladkaa sameeyey iyo sida aad uga xun tahay ficilkaasi, kadibna ilbiriqsi yar aamus si uu qofkaasina kuula dareemo xaaladda aad dareemayso. intaa kadib garabka ka taabo ama gacan qaad. waxaad u sheegtaa in aad isaga ku qanacsan tahay, laakiin markan aanad shaqadiisa ku qanacsanayn ama aanad ka helin. sidoo kale xasuusi sida aad ugu hanweyn tahay ee aad u qiimayso iyo halka uu kaa taagan yahay. waxaas oo dhanina waa inay 1 minute gudahood ku dhacaan sidii aan hore soo sheegnay. waxa uu leeyahay qoraagu 3daas qodob waa kuwa ugu saamaynta badan ee maamulaha 1 daqiiqo ka dhiga qof maarayn wanaagsan. dadka marka aad sidan ugula dhaqantana waxay abuuraysaa ilaaqaad wanaagsan. hal mar qofkii kugu qaldamaa waxaa laga yaabaa mar labaad inaanu qaladkaasi ka soo noqon. markaynu soo ururino 3da qodob, kow waa inaad xuduud u samayso marka hore oo ah inaad hadafkaaga dejiso, dariiqii loo mari lahaana aad dejiso. marka labaad inaad qofka u mahad celiso marka uu shaqo wanaagsan qabto. sidoo kalena marka aad canaananayso oo uu qofku qalad sameeyo waa inaad si miyir qabtaa u canaanato ama aad ugu sheegto waxa uu qalad ka sameeyey. ugu dambeyntii waxaynu soo ururinaynaa xeerar buugga ku dhex faafsan oo uu qoraagu tilmaamay, kuwaasi oo mid walba cilaaqaad la leeyahay meesha uu kaga hadlayo, balse inagu aynu isku soo ururinayno. kow qoraagu wuxuu ku leeyahay qofku marka uu dareemo inuu naf ahaan wanaagsan yahay waxa uu noqonayaa qof wax soo saar badan. qofka markasta oo aad dareensiiso qiimihiisa ama uu isagu isdareensiiyo waxa uu noqonayaa qof wax qabad badan. qodobka labaad waxa uu ku leeyahay waxa ugu qiimaha badan ee la bixiyaa waa qof in la maalgashado.
qodobka saddexaad qoraagu waxa uu ku leeyahay mar kasta oo aad qorshe dejiso 1 minute ku qaada inaad dib u fiirisid qorshihii kadibna aad dib u fiirisid waxqabadkaaga ama sida aad hadda wax u qabanaysid. waxa uu ku leeyahay isbarbar dhig qaabkaad wax u qabanayso iyo hadafkaagu inay isleeyihiin. qodobka afraad waxa uu ku leeyahay qoraagu mar kasta waxaa saameyn inagu yeesha cidda ina maamulaysa. haddii ay wanaag ina gashadaan waxaynu noqonaynaa dad wanaagsan, haddii kalena cagsigeeda ayaynu noqonaynaa. daawade intaa waxaa ku eeg mawduuceeni aynu ku eeganay buugga The 1 Minute Manager. haddii aad in uun wax ka faa'iiday fadlan u sheer garaa asxaabtaada, kanaalkana ku soo biir haddaad ku cusub tahay, like-tana hanaga ilaawin. mahadsanid.